hay-adda kheyriga ah ee Haro oo saldhigeedu ugu weyn uu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay shahaado sharafeed guddoonsiiyeen culimada Soomaaliyeed oo kaalin weyn ka ciyaaray badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay sida ba'an ugu saameeyeen qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. hay-adani oo xiriir wanaagsan la leh guud ahaan masaajidada ku yaala dalka Mareykanka ayaa soo bandhigtay waxqabadkii muddadii ay jirtay. Ali Xaaji waa maamulaha guud ee hay-adda Haro ayaa ugu horeyn u mahadceliyay imaamyada iyo culimada ay ku mideysan yihiin Jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano Iyana. intaasi kadib waxaa TV-ga caalamiga ah ee Universal la hadlay qaar ka mid ah culimada ugu caansan Soomaalida kuwaasi oo bogaadiyay hawsha ay wado hay-adda Haro iyagoo ka marqaati kacay in hay-addani ay ku gudatay waajibaadkii loo xirsaaray. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen hay-adda Haro. hay-adda Haro runtii waxa weeyaan shaqo badan ay wadankii Soomaaliya abaarihii oo kale runtii waxaan isticmaalnay amount aad u xoog badan iyo dhul badan oo Soomaaliya shanta Soomaaliya kamid ayaan tagnay. haddana waxaan nagala martaqaaday inaan nimaado shirka 16aad ee Majlis al-Aima ama Iyana imaamyada isu taga North America. runtii aad iyo aad baan u mahad celinayaa sida ay noo soo dhaweeyeen Janasna noogu siiyeen. sidoo kale ma aha kale inaan ayaga u mahad celinayo waxa weeyaan anagana door bay hay-adda Haro ka qaadata dacwada iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jiro ayagana runtii aad iyo aad hay-ad noo caawis weeyaan. meesha waxa isku yimid ilaa 27 masaajid 27 masaajid oo meesha isku timid runtii way endorse gareeyeen hay-adda Haro inay wax la qabtaan wax kasta oo wadankii Soomaaliya caawinataan u baahan ha ahaadana xagga agoomo ha ahaadana xagga dadka naafada ah ha ahaadana ceelal la qodo fatrada iyo la bixiyo runtii waxa weyn aad bay noo soo bodgareeyeen anagana aad iyo aad baan u mahadinayaa anigoo ah gudoomiyaha hay-adda Haro wajazaakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan rabaa inaan u mahad celino hay-adda Haro oo shaqo badan ka qabata Soomaaliya iyo East Africa sanadkan gudihiisa abaari aad uga shaqeysay wax badan ka qabatay. Haro iyo annaga ayaana ahaan anoo ah executive director of Iyana ama madaxa fulinta ee Iyana waxaan runtii taageersanahay shaqada wanaagsan ee Haro qabato waana la shaqeynaa waana jamciyadan aaminsanahay waxaana ku wacyigelinayaa oo ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka muslimiinta inay la shaqeeyaan jamciyadan oo ay taageeraan si dadka baahan ee wadanka jooga ay wax u gaarsiiso. waa mahadsantiin. waxa halkan aan doonayaa waxa kelimad yar inaan ka jeediyo hay-adda khayriga la yiraahdo Haro Foundation waa hay-ad khayriya aad iyo aad bay mataqaanaa uga shaqeysaa ummadda daciifka ama tabarta yar si loo caawin lahaa abaarihii oo garanaysaa dhibkii mataqaan dadka soo maray cudurrada markii mataqaanaa dadka ay shuban biyood ku dhacay macnaha sidii ay dadka u caawinaysay markii abaaru jireen biyaha siinaysay cuntay dadka u geenaysay daawooyin bay markii la bukoday geenaysay marka waa hay-ad khayriya oo aan mataqaan rajaynayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkan ku anfaco marka dadka mataqaanaa muslimiinta ah walaalay waxaan ka codsanaynaa hay-addaas in la caawiyo si ay dadka masaakiinta ah ay baahan ay mataqaan wax u gaarsiiso sallallahu alayhi wa sallam wa sallam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan jeclahay halkan inaan ka bogaadiyo hay-adda Haro marka la soo gaabiyo oo ah hay-adda samafalka geeska Afrika oo raacsan dacwada waqooyiga Ameerika wakiilna uga ah inay gaarsiiso wixii gargaar ah iyo wixii qaasa ah dadka muslimiinta ee jooga geeska Afrika gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan insha Allah taala ku boorinayaa dadka walaalaha oo Soomaalida oo dhageysanaya meel kasta ay joogaan adduunka inay hay-addaas la tacaawunaan oo garab galaan oo gargaarka iyo wixii ay u dhiibayaan dadka muslimiinta ee Soomaalida inay tahay hay-ad lagu kalsoon yahay gaarsiin karta wax badan gaarsiisay dhowr iyo 10 sano oo hadda u dhameysay oo hay-addu ay dhisnayd. ilaahina waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka Soomaaliyeed dalkooda barwaaqo uga dhigo dhibaatooyinkana ka dulqaado. ilaahina subxaanahu wa ta'ala nabadgeliyo iyo barwaaqo uu ku siiyo hay-adda iyo mas'uuliyiinteedana Ilaahay khayrka waafajiyo ummadda inay u adeegaan oo gaarsiiyaan gargaaradana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waafajiyo dadka muslimiintana inay arrinka ku kaalmayaan إلهي سبحانه وتعالى وافجيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
magacaygu waa Saalix waxaan joogaa magaalada Lewiston Maine imaamka ahay masjidka LA Islamic Center runtii hay'adda Haro waa hay'ad aan aad iyo aad u kalsoonahay waa hay'ad runtii ay aasaastay culimadu waa hay'ad aan maartay hay'aan mas'uul ka yihiin walaalo lagu kalsoon yahay Cali Xaaji iyo walaalka Bashiir iyo maartay walaalaha kale inta la shaqeeyo aad iyo aad runtii last 10 years oo wada shaqeynay waxaan u dhiibaynay lacagaha maartay mar walba oo dhibaato ay jirto waana ku kalsoonahay meel badan oo gaarsiiyeen iyo maartay shaqooyin badan ay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay Allah ku kaalmeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku garab istaago dadka muslimiinta ee baahan ee duruufaysan kuwii gargaaro oo garab istaaga Allah ka dhigay iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha waafajiyo amalka hayaan ayaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana amalkeen Allah waafajiyo si khayr loo wanaag ku jira Allah ku waafajiyo kuwa daacad oo maartay cadaaladda iyo khayrka Ilaahay waafajiyo Allah ka dhigo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي بقى مهد إسكالي وعن رنتي دونيا إنا نددك ولا الله اللو داقو هيئة لهذا هارو وهيئة رنتي عن مدلة شقيي هذانا هاي ولكن آدم الشيخ عبد الله ديري إمام كمسجد ابن تيمية مقالة كولومبوس أوهايو إن مدة أو 10 سنة أما إن كله وحن لشقينيي رنتي وحن كبرتي inay tahay hay'ad caalami ah oo dadka runtii waxyeeladu ay soo gaartay wax taro dhinacyo fara badan oo kala duwan isla markaana ay hawsheeda hayaan dad runtii mas'uuliyiin ah oo wax garad ah oo aan ku ognahay runtii diin iyo xilkasnimo waxaan dadka walaalaha ah oo kelimadayda daawanaya ama dhageysanaya runtii ku boorinaya hay'adda in lala shaqeeyo oo wixii sadaqaadka iyo qof walba wixii uu Ilaahay hortii u hormarsanayo inay tahay hay'ad mudan in la mariyo oo loo dhiibo taqaariirta iyo warbixinada ay nala wadaagayaan iyo runtii sida aan ku baranay ashqaasta wadaba inay yihiin dad runtii mowqifkaas ama meesha iyada ku haboon Ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala inuu amalkooda barakeeyo aqbalo intii ka qayb qaadato oo ku taageertay amalka khayriga ah Ilaahay inuu ka aqbalo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad barakallahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رun ahaantii anigu horta waxaan ahay imaamka Maine Muslim Community Center masjid Bilal magaalada Portland ee gobolka Maine hay'adan Haro waqti dheer baan maartay waxa uu taakuleynteedan ka qayb qaadan jirnay hay'adaasi runtii waa hay'ad aad maartay dad weynihii gobolka jooga ugu qanceen marka uu doolarku u dhiibo ruuxa wuxuu ku leeyahay hay'adda Haro igu dhiib waxa dhacay mararka qaar intay dadku waxay soo tagaan ay soo aruuriyaan adoon ogeyn laga yaabo in mararka qaar aad ka warqabin bay wuxuu ku leeyahay hay'adaas loogu dhiib hay'addu marka waa hay'ad dadku ay aamineen in badanna warbixinta ay soo gudbisay iyo sawirrada ay keentay iyo meelaha ay ka keentay maartay fiidiyoyaasha iyo klibyada iyo ayna tustay ama dadweynaha ay tusaysay bay aad ugu qanceen dadweynaha marka hay'adaasi waa hay'ad loo bogay dadweynaha Soomaaliyeed meel joogan waxaan ka codsanaynaa inay maartay hay'adaas ay caawiyaan garab siiyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دمان أمد الصوماليات خاصة الصومالية كنا القربها يوروبيا أمريكا كندا مال والبا وحن ربعنا هالكان أوت المامو hay'adda Haro oo runtii ka shaqeyso samafalka ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhanba ku dhibaataysan wadankii in la caawiyo oo runtii lagala qayb qaato hawlgalka samafalka ay wado waxaana saa u leenahay waxa weeyaan waa hay'ad aan aqaano ayada iyo dadka maamulaba oo culimaduna ay taskiinayaan marka insha Allah ta'ala qof walba wixii uu ku taraa dadka muslimiinta ah gacanta aaminka ana u dhiiba insha Allah waxaan rajaynaynaa in sida iyadoo taa meeshii loogu geeyo wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah ilaahay dartii hal loo kaalmeeyo hal nagala qayb qaato hawlaha samafalka ay ku mashquulsan tahay wajazaakumullahu khair وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا ليال ولا لها صوماليات ميل كستود الدنيا كجوكتان وحيد كعد سنة هي أده هرو هلا عاويو هرو وحي أخذ ميسا ضدك مساكين تا هرو وحي أخذ ميسا ضدك إني أبارو كل عين هرو وحي أخذ ميسا ضدك أنت باهن مرور مركه هلا جرب يستاجو وإحنا قدر صدق إن شاء الله تعالى قف والبا هيل إيه هو كلمة وناكسن لجرب يستاجو جيب كأنه أفرع
qalbigiina u fura dadkiina masaakiinta ha loo naxo meel walba oo joogtaan allah idin barakeeyo walaalaha gacanta ku hayay waa walaalo multazimiina oo naqaano diintooda ognahay marka ha la garab istaago insha Allah ta'ala wa mahsantiin jazakumullahu khair. On behalf of Al-Ihsan Islamic Center, I would like to add my voice to a few words about HARO, Humanitarian African Relief Organization. Humanitarian African Relief Organization, or in short called HARO, is a wonderful organization that's supporting the vulnerable people in the Horn of Africa, and I support it. Not only that, we know the people that are running the organization, but I support it because of the wonderful activities and programs and projects that it's doing in Somalia. If I give you an example, the drought of last year that took place in Somalia, which was due to lack of water or a shortage of the rain season or the absence of the rain season, HARO did a good job, and I, just representing Al-Ihsan Islamic Center, was one of the people who supported it to get some fundraisings. In our masjid, we raised some money for the drought, and we gave the money to HARO, and HARO did the activity, took the money to Somalia and supported all the vulnerable people in all the regions of Somalia. And I would like everyone to support HARO heartily. Thank you very much. anigoo ku hadlaya magaca masjidka Al-Ihsan Islamic Center oo ka tirsan jamciyadda Islamic Association of North America, waxaan rabaa inaan idin sheego in HARO ay tahay hay'ad khayri ah oo runtii qabatay shaqo aad u wanaagsan Soomaaliya ka qabatay. Not only inaan garanayno dadka gacanta ku haya, laakiin waxaan ogahay hawlaha ay ka fulisay samafalka Soomaaliya oo dadka tabarta daran ama agoonta ah ama dadka abaartu ay tabaalaysay ama dadka ma garanaysa xanuunka ku dhacay sida ma garanaysa kalooraha iyo shuban biyoodkii waxyaabaha ay ka geysteen ay caawiyeen. Sidaa darteed HARO waa hay'adeeni, waa hay'ad Soomaaliyeed, waa hay'ad u khidmaynaysa mujtamaca tabaalaysan ee Soomaaliya. Hala support gareeyo, cid walbana ha support gareyso, dadka gacanta ku hayana wadada aan naqaano oo wanaagsan weeyaan. Assalaamu calaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arda Mohammed, and I would love for you guys to support HARO organization. What they do is, subhanAllah, like amazing job. They help the people in needy, or people back home that are struggling from the famine and all that stuff. And as well as like the Youth and Abu Bakr Siddiq Islamic Center actually did participate helping the people back home with doing different like things, like for example, like we did bake sale, as well as we did car wash, and then whatever money that we collected from, we divided amongst the different organizations that serve the community. HARO was one of the last donations that we to distribute the money to, and then alhamdulillah, with that money they took it back home and it helped a lot of people. So I would love for you guys to continue to support any organization that help the needy back home. kastaba ha ahaatee hay-adda HARO ayaa soo bandhigtay meelihii ay gaarsiiyeen gargaarka bini'aadanimo, waxaana meesha ka muuqatay in hay-addani ay tagtay guud ahaan tuulooyinka iyo gobollada laga soo sheegay abaaraha.